عيالك أنا قياستي جيت كل اللي إنقالي دكسي جرانيو ما دكسي كسل إنقالين تدو لو كنترولاي لا أفتو بلاي ولا كمودي هان لي أمالي متى البداية نمجي عيال دكسي دتون كرو ماما أنا كومي كجراه سورة الزمر لما هاي صاد يا بلاواي ما سنجر وكريك بس يريد سجال سنجر كذا قبرتنا هذا تضبي النص أكله جرته تضبي النص لما تبغى تضبط اسكت دكسي هاي دكسي إذا تنت تكبر ما هاينا عبد المطعم أويس عبد الله أو سجال سنجر هي آمنة أويس عبد الله أو تضبط سنجر ولا لا يا ساك أرورتي ميت كذا لك هلاي دولت كما قال هذا بيدبا قبل كباي inta aan meedkooda la helin labadan walaalaha ah ayaa guriga waxay ka maqnaayeen oo la weysanaa in ka badan 10 saacadood sida uu Universal TV u xaqiijiyay aabaha caruurta Sheekh Aweys Cabdullaahi marka qadar ka maqnaayeen inta meedkii la helin qadarka 8 saac lagu bilaw ilaa waa ku bariyay ma raabtiyay meedkii la helin okay meedka inta la ku helay sida telefoonka la in kashay adeer aadan aad saatay bohol galanjo okay bohol galanjo bohol galanjo ما شاء الله سمري ما إلى نفس goobtan oo ah guriga reerka caruurtan ay ka baxeen ayaa soo buuxdaafiyay kumanaan dadweynaha oo xaafadaha Baydhabo ka kala yimid isla markaana la yaaban dhacdadan xanuunka badan ee qoys Sheekh Aweys Cabdullaahi ku dhacday meedka labadan caruurta ah ayaa jirkooda waxa ka muuqda sida wararka ay sheegayaan dhaawacyo tooray ah oo dilkooda loo adeegsaday sidoo kale warar iskhilaafsan oo soo baxaya waxay sheegayaan in xubno jirkooda uu maqan yahay halka wararka qaarna ay sheegayaan in kaliya dhaawacyada toorayda ay ka muuqato oo xubnaha jirkooda aan waxba maqnayn inkastoo ay xaqiijin karaan arintan oo kaliya hay'adaha amniga oo gacanta ku haya baaritaanka kiiskan halkan oo ah qabuuro ku yaala duleedka magaalada Baydhabo waxa ka qayb galay kumanaan dadweyne ah oo arintan la yaaban iyo wasiiro ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida wasiirka arrimaha gudaha kan warfaafinta cadaaladda iyo garsoorka xanaanada xoolaha taliyaha qaybta asluubta iyo xubno kale Sheekh Aweys Cabdullaahi Ibrahim oo safar uga maqnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa saaka degdeg ku yimid Baydhabo markii loo sheegay in laba ka mid ah caruurtiisii meedkooda la helay waxa uu ka waramayaa dareenkiisa marka koowaad meelana way muujinayaan in Ilaahay wali qadari raala ka ana meelay Ilaahay isu oomi isuun wanaagsaday qaabka isu ka nagsadawna isumni kala taladaw qaabka in la ka nagsada leenka tala gali geeriyo la abuuraya sadahayti ميلنا قضاء وقدر والإلهي حكمي قدريو ونون ميلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا إلهي مهديسكو ذنب ما هذي لما عندكي نوكل قيب قاضي عيالك يريراي دغوشو كفانيوجو كتكدوشو دوغوشو iyo walkasta baan baahnaayeen dadkaasoo in iska jiraan maamulka dawladda Koonfur Galbeed iyo shacab weynaaga reer Baydhabo dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada ka saas organized crime kana ma baahanyiin marka lagu horseedo galanbir lagu horseedo baahanyiin anti hata ku hor ka dhimatay waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay Ilaahay badbaadi kore lankii galantiis dambiiliga haytiin sidii yani ciqaabkii isu mutay sidii liin mari lahay baaqaasay ma jeediyay xukuumadda iyo shacabka guud ahaanba wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyas Saciid Qalinle ayaa sheegay in kuwii dilkan ka dambeeyay cadaaladda loo horkeeni doono dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna warcad ay ka soo saari doonto xildhibaanka way baba ku tacsiyane anuu ku dahwaa afka dhammaan xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan afka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlafta Gareen geerida xanuunka badan oo meel raayo saada ka koyti qoyska xildhibaan Sheekh Aweys oo runtii lama cunug AD8 ansurad badan dareemo kortaan daadiyo ka jiraan runtii ee daadan ka fayl runtii garan ku xaq daran iyo ku dili Sheekh Aweys marka hore way baan ku tacsiyaanay geeridaas xanuunka badan mar lamaad iyo mar saddexaad intaba intaas ku dib kan xukuumad ahaan runtii dhacdo way baabnii noqotay runtii AD8 naxdin badan leh dhacdooyin dhow ah magaalada Baydhabo ku dhiyeen runtii kan xukuumad ahaan walweyn ku qobanni tagna tacsiida ku dib ku reed way baab rajayaane inay dib iska noqdo doona oo umadaas meel raayo sada dhamaan laamo amniga la kulmo doona
insha allah dhacdadoona runtii si sax ee runtii oo macluumaad sax ee lagu helo runtii in baaris uu soo bii doona. labadan caruurta ah sida aabahooda Sheekh Aweys Cabdullaahi uu xaqiijiyay hooyadooda waxay dhimatay 2 sano ka hor iyadoona ku umul raacday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Baydhabo. waqtigii la weynayay waxay ehelka ugu muqanaayeen dugsi quraan oo ay dhiganayeen. dhacdadan waa mid ku cusub magaalada Baydhabo. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.